nagama reebayso adeega qarannimada Soomaaliya ninkii doonaya ama qaraabadeeda caawa inta ha joogto ama inta ka maqan iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxaan rabaa nacayb uma qabo dadka uu madaxweynaha u yahay laakiin hadduu khaldamo waxaan xaq u leenahay inaan tilmaamno u sheegno kooxda uu isagu hogaamiyo ama maanta haysata hogaanka dawladnimo ee Soomaaliya waxay mashquul ku yihiin boobkii hantidii laga dhaxlay dawladii dhexe ee Soomaaliya wasaarad wakaalad dugsi hoose dhexe iyo sare maanta waxa guddigood lagu siiyay kontract cidii doonaysa warkaas isagaana marqaati waa u helaysa ma jiro waxbarasho lacag la'aan ma jirto nimankani ganacsi ay ku jireen shalay maanta dawladnimada waa ka ganacsanayaan danna kama laha Soomaaliya inay nabadgelyo ka dhacdo dhinaca dib u heshiisiinta waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo waxaan kala hadlay madaxweynaha waxaad garanaysaan bishan aan hadda ku jirno sanad iyo 8 bilood ka hor kulankii ugu dambeeyay Cabdikariin oo ahaa wasiirkii fashilmay ee wasaaradii muxuu ahaa amniga qaranka ee cadaystay inuu isagu ku guul daraystay hogaamintii wasaaraddaas iyada ah iyo ilaalinta shacbiga Soomaaliyeed heshiiskii ugu dambeeyay waxa Soomaaliland lala galay dhab kama aha dib u heshiisiinta Soomaaliya nabadgelyo ma helayso ilaa madaxda iyo adeegayaasha qaranka Soomaaliyeed ay daacad ka noqdaan through reconciliation Soomaalida dhexdeeda laga sameeyo doorasho ma dhacaysa anigu waxaan aaminsanahay waa dhici kartaa doorasho sabab sahlan bayna ku dhacaysaa meeshii 135 oday sida uu sheegay gorad ilaahay ha dhowre uu sheegay ee ahayd 135 inay soo dooraan muxuu ahaa xildhibaanadii ka qayb galay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya mustaqbalka siyaasadeed Soomaaliya ay yeelato anu arintaas in loo noqdo ma qabo 2 million out of 10 million hadii dadka Soomaaliyeed goobaha ay nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirto ee dhulka Soomaalida ku yaala codkoodu ay ku bixiyaan waxaan doonaynaa inaan doorano tarsan miyayaan xaq u lahayn in la dhageysto 2 milyan mise waxa xaq u leh in la dhageysto 135 xildhibaan 135 waxaan ku soo xirayaa dhinacaas waxaan la hadlay ninkan maamulay madaxweynaha ka Soomaaliya ee dalkana ka soo jeeda waxaan ku yiri suurtagal waa tahay maxaa jira Ciraaq 3 meelood 2 meel ka badan waxa haysta ISIS iyo ISIL Afghanistan waa ogtiin marka doorashada qofka uu bixiyo suulka marka uu saaro marka uu luqa kala ka leexda gacanta laga goynayo odayaasha marqaata ka tiin kulligin marka waa ka dhici kartaa Soomaaliya umana baahna kooxahan maalintii ay meesha yimaadeen dantoodu ma ahayn kamana shaqeynaynin in Soomaaliya dimuqraadiyad iyo dariiq laga dhaxlaa oo wanaagsan ay Soomaalida ku hogaamiyaan ujeedadoodu waxay in xoolo boobaan waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal kale oo ah in 4.5 dadka dhibsadaan ku jira waxaan aaminsanahay ruuxu inuu Soomaali yahay hadda aaminsantiin idinkuna waxaan aaminsanahay Soomaaliga inuu la siman yahay Soomaaliga kale waa ceeb shacbiga Soomaaliyeed u soo hoyatay in ruux Soomaali ah lagu tilmaamo inuu yahay dar waa ceeb ama shan xitaa ama xisaabkaas wax lagu qaato dhinaca kale doorashada 2016 doorashadu waa dhacaysaa sidaan u sheegay xukuumadda iyo baarlamaanka hadda joogaana waxay mashquul ku noqdeen markii ay ka shaqeyn lahaayeen qaabka iyo hanaanka ugu haboon ee dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa doorasho lagu gaarsiin karo waxay mashquul ku noqdeen kan rid waxay ugu dhaheen kuwa aniga qaraabo ilaah maxaad madaxweynaha u haysataa waa arintan keentay waxaad ogtihiin intiina badan markii laga qaadayay Cabdi Faarax Shirdoon in loo diiday inuu baarlamaanka hortago been ma aha hadalkaas marqaataad ka tihiin ra'iisul wasaarihii ku xigay muxuu ahaa magaciisa Cabdiwali Sheekh Axmed wallaahi oo billaahi oo tallaahi gurigiisa ninkaana joogay afayeenka ahaan jiray magaciisa darabtan ma sheegaayo laakiin muskiilo baasta oo laga kariya la waayo aniga magaalada Muqdisho 5 bilood intaan joogay waxaan ku sheegayaa kooxdaasna dabka waa u shidnaa waxa la rabaa inaad ogaataan inay idin reereystaan waxa ay rabaan inay qulubtiina ku qaataan way sax ma ahan ubadkiinu maanta caafimaad buu haystaa kuwa Soomaaliyeed oo aan caafimaad haysanin baa jira waxaad ogaataan cid kasta oo u heelisa in iyadu Ilaahay hortiisa la tagi doonto bulshada rayidka waajibka saaran muxuu yahay waajibkana saaran wuxuu yahay inaan tilmaamayaal wanaagsan noqono haddaan anagu nolol iyo ayatiin fiican haysan ubad kale oo Soomaaliyeed oo aan ayatiin iyo nolol haysanin ba Soomaaliya jooga waxbarashada waa lacag caafimaadku waa lacag isbitaal digfir lacag ayaa lagu galaa waa run anigu habeen baan soo dhexsaxay cidna uma sheegin xalane waa runtiis Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi inaan la geli karin waa runtood ana soo seexday waxa ka socdana waa soo arkay ama taliya nabad sugid ahaaw ama ciidan xoogga dalka hayso hatta madaxweynaha markuu u galay waa in laga hormaraa hatta oo la sii sheega inuu soo socdo maana madaxweyne jamhuuriyadda ka taliya oo iska geli kara hatta meesha ma jirto ana taas idin sheegay ya